maanta waa maalin weyn waxa weeyaan maanta carafaa la taagan yahay ilaahay ha ka aqbalo dadka muslimiinta ee maanta carafa taagan xajka ilaahay ha ka aqbalo ducadoodana ilaahay inaga hay nagu anfaco waxa weeyaan halkan waxaan keennay ari nin muxsin oo ma garanaysaa uu bixiyey xoolo uu bixiyey oo deeqa oo jeelka iyo dhakhtarka waa 18 neef halkan 8 waxaan geynaynaa imiga jeelka waxaan dhakhtarkaan geynaynaa 10 waxaan siinay dhakhtarka ninkaasi magacayga sheegin uu yiri dar ilaahay buu la baxay jeelka waxa weeyaan 10 waxa la jeelka 8 waxa la dhakhtarka TV-da iyo ka kale ee maskaxda dhibirka ayaa leh magacayga sheegin uu yiri ilaahay miisaanka xasanaadka ma aragtaa ilaahay wuxuu hayana ilaahay ha u barakeeyo dad iyo dunyaba ilaahay wuxuu hayaa u barakeeyo aniga waa taliyaha xabsiga Boorama ahna Axmed Nuur Cadar waxaan halkan kula wareegay 10 neef oo ariya oo kala wareegay Suldaan Abshir loogu talagalay maxaabiista iyo ciidanka si ay u barqistaan cidii bixisana ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo assalaamu alaykum waa qaybtii labaad qaybtii hore waa naga jeelka soo siinay waxa weeyaan qaybtii labaad oo 2 meelood uu soo magacaabay ninka ma aragtaa samafalii dhakhtarka dhimirka iyo ka TV-da waxa weeyaan waa isku kusheen u balay dhakhtarku waa isku kusheen doctorkan baa naga gudoomayo kii dhimirka ayaa naga gudoomaya oo ku wareejinay waan kugu wareejinay doctore waan kugu wareejinay waa 8 neef waxa weeyaan ilaahay kii soo bixiyayna ajir iyo xasanaad ka siiyo waxa weeyaan kuwana ilaahay ha u cafo bukaanka hadada jeer dul joogtaan Allah idin karsiiyo amiin islaamka weeyaan sidaa iyo nabadgelyan inuu Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo noo keenay arigii ugu horeeyay oo maalinta Carafa ah aad iyo aad ayuu gudoomeynaa tiradiisu way badan tahay waa 8 neef aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jazaakumullahu khayr waana aftar fiican